Assalaamu calaykum, soo dhawaada. Maanta waxaan rabaa inaan si fudud u sharxo waa maxay Bitcoin. Aan tusaale idinkugu soo qaado. Maqaaxi ayaa tegey, koob shaah ayaan ka iibsaday, counterka ayaan imid, kaarkayga ayaan dhiiq u siiyey. Isla markiiba akoonka maqaaxidu wuxuu la xiriirayaa bangigayga. Bangigayga wuxuu jegaraynayaa faylka ay ku qoran yihiin nambarada iyo digitalka lacagta akoonkayga ku jirta. Haddii lacag ku filan ku jirto, isla markiiba wuxuu usoo gudbinayaa qiimaha shaaha akoonka maqaaxida. Bangigu waayada dambe wuxuu noqday inuu hayo faylkaas digitalka ah oo ay ku qoran yihiin baalasyadaas. Bangiyadu waayadan dambe waxay isu bedelayaan inay yareeyaan daabicitaanka lacagta kaashka ahayd oo la taabanayay iyo qadaadiicdii, waxayna isu bedelayaan inay hayaan nambaro ama digitalis ay ku hayaan faylasha kombiyuutarkooda oo xafiisyadooda yaalla. Haddaba bangigiisa u shaqaynaya haddii meesha laga saaro, yaa ku aaminaya faylkaygii ay ku qornayd lacagtayda digitalka ahayd. Xagee ka helaya qof ama shirkad aamin ah oo digitalka lacagtaydas ii haysa oo aan lasoo weerari karin intaan qoryo qaato, bangigooda soo jabsan karin, aan lasoo weerari karin intaan qoryo qaato xafiiskooda ama gurigooda aan soo jabsan karin, ama qofkii aan soo afduubi karin, ama dowladdu hadday dabacdaba qofkii aysan iska xiri karin. Qaabka noocaas ah ayaa waxaa soo kordhiyey Bitcoin ama blockchain waxa loo yaqaano. Bitcoin ama blockchain waxay soo kordhiyeen inay dhaheen qofna yaan la aaminin ee qof walba adduun ku nool aamin, oo macnaheedu tahay faylka lacagteedu ku qoran tahay waxaa loo dhiibayaa malaayiin qof oo adduunka geesiisa ka nool, oo haddii qof damco inuu soo dhaco, qofkii uusan soo afduubi karin, shirkaddii uusan soo xiri karin. maxaa yeelay malaayiinta qof adduunka geesiisa ka nool, hal qof oo xiri kara ama soo dhici kara ma jiro. haddaa hal qof oo ka mid a dhacdid ama faylkiisii soo qaadatid, macnaheedu waxaa malaayiinta qof adduunka ku nool ma soo dhici kartid oo faylkeeda ma update gareyn kartid. qaabka noocaas oon qofna la aaminayn laakiin qof walba faylkii lagu aaminayo ayaa waxay ka dhigtay blockchain-ka iyo cryptocurrency-ga wax cajiiba. dadkaas malaayiinta adduunka geesiisa kala nool aan waxaan ka wadaa waa kombiyuutaradaas oo xisaabaad ku shaqeeya oo shirkaddii ama qofkii raba uu maanta furan karo. si kombiyuutaradaas 24 saac 7 beri usbuuc u shaqeeyaan, qof walba oo kombiyuutarka 24 saac u shidan yahay oo xisaabaadkaas kombiyuutarka ku qabanaya wuxuu abaalmarin u helayaa bitcoinkaas uu hadhow sii gadan karo oo lacag badan u noqon karta sida haddaba dhacday. qaabka nooca u shaqeynaya ayaa bangiyadii 2 iyo 1 ku diray. sababta keentay in bangiyada koobka laga qaado ayaa waxay tahay oo midda koowaad uguna muhiimsan waxa weeye xorriyadda, inuu qofku xor u noqdo hantidiisa, lacagtiisa, oo markuu doono dirsan karo, loo soo diri karo, uusan qof kale uusan la maamulaynin. midda labaadna waxa weeye in ay ka safe garaysan tahay qaabkan blockchain-ku qaabkii hore, inuu hal kombiyuutar maamulo malaayiin qof faylashoodii, oo kombiyuutarka haddii qof damco inuu dhaco si fudud u dhici karo, ama qofka bangiga jooga hadduu doonaba uu dhici karo, ama dowladuhu ay dhici karaan haddii rabaan. sababta kale keentay xiisaa u yeesha qaabkan cusub waxa weeye inaan lacagtii la iska daabaci karin. saad ogtihiin dowladaha ayaa lacagaha iska daabaca ayuu sida doonaanba ay u fasirtaan ama marmarsiyaha uga dhigtaan. sida hadda tusaalaha waxaana tusaale noogu filan hadda midda waddankeena ka taagan lacagta sicir bararka iyo sida lacagteena u qiimo beeshay. waxaa kaloo blockchain-ka ama bitcoin-ka muhiimadda siisiin iyo waadaan dambeeto adduunka wuxuu isu bedelaya waxaa la dhaho digital. wax walba hadda waxay noqdeen digital. waagii hore waxaa wararka laga heli jiray New York Times iyo kuwa la midka ah, laakiin hadda warkii internetka o dhan ayuu ku firaqsan yahay. hal koox oo maamusha ma lahan, meel walba uu yaallaa. bitcoin waxay rabtaa inay bangiyada ka dhigto sida New York Times oo kaleeto, ay noqoto lacagta internetka o dhan ku firaqsan, hal kooxna aysan maamulin. bitcoin gaar ahaan waayadan dambe waxay isu sii bedelaysaa oo sifaheeda yeelanaysaa dahabka internet. waxay rabtaa inay dahab booskiisii gasho si lacagta loogu kaydsado. waxaana taa tusaale inugu filan dumarka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin inay haystaan dahabyo guryaha ku haystaan. sababtay dahabka u haystaan jijimaha iyo risladaha usoo gataan waxa weeye inay qiimaha lacagta ay ku haystaan oo 10 sano kadib ama 20 sano kadib dahabkaas qiimihiisu mar walba uu sii kordhaa, sida lacagaha kale halka lacagana ay qiimahooda ay sii dhacaan. haddaba aan kusoo gabagabeeyo bitcoin waxaa la alifay ama lasoo saaray 2008 dhammaadkiisii, waxaana warqad soo qoray qaabka u shaqaynayso qof loo yaqaanay Satoshi Nakamoto. 2009 waxaa loo bedelay programming, waxaana qoray programkeeda nin loo yaqaanay Halfany. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.